السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada barnaamijkeena hal daqiiqo maanta waxaanu ka hadlaynaa Djibouti. Jamhuuriyadda Djibouti waa dal yar oo ku yaala bariga geeska Afrika wuxuuna xuduud leeyahay Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya. Badgood waxaa lagu qaasaa 23,200 kilomitir square waxaana caasimad u ah magaalada Djibouti waana magaalada ugu weyn dalkan. Tirada dadka waxaa lagu qaasaa 1 milyan oo qof, diinta ugu badan dadku haystaan waa diinta Islaamka. boqolkiiba 70 shacabka dalkan waa Soomaali, halka boqolkiiba 30 ay yihiin Cafar. luqadaha rasmiga waa Faransiiska iyo Carabiga, luqadaha la aqoonsan yahayna waa Soomaaliga iyo Cafari. Djibouti waa dalka sideedaad ugu yar qaaradda Afrika. Dalkan waa dalka uu nolosha qaalisan ee lagu noolaado qaaradda Afrika, halka Eritrea oo dariskiina ay tahay dalka uu nolosha jaban qaaradda Afrika. Djibouti waxaa soo maamuli jiray beelo kala duwan, beelahaas oo kala ah Ciise iyo Canfar, waxayna kala degaan koonfurta oo ay Soomaalidu degto iyo waqooyiga oo ay Canfartu degaan. saldhigga Mareykanka ee dalka Djibouti oo lagu magacaabo Camp Lemonie waa saldhigga ugu badan oo ay ciidamada Mareykan ahi joogaan qaaradda Afrika, waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 4,000 oo askari. dalkan waxaa saldhig military ku leh dalalka Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Jabaan, Shiinaha iyo Sacuudiga oo rajeynaya inuu dhawaan ka furto saldhiggiisa. dalkan wuxuu xornimada ka qaatay Faransiiska 27 Juun 1977. madaxweynihii ugu horeeyay dalkan waa Xasan Guuleed Abtidoon. madaxweynaha haatan talada haya waa Ismaaciil Cumar Geelle. lacag dalkan waxaa loo magacaabaa faranka Djibouti.